sidii aan u qaadan lahayn amarkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland oo ah in gargaar kasta oo Laascaanood iyo maamulka SC u socda inaanu fududeyno oo aan u fududeyno sidii loogu talagalay aan saaka aragtaanin inuu nala taagan yahay maayarkii iyo shiikhul beledkii iyo xildhibaanadii dhammaan runtii waxaa ilaahay mahadiisa dadaal badan iyo waqti badan oo maamulka iyo waliba maamulka dekedda Boosaaso iyo wasaaradda gargaarku dhammaan ay galeen inuu si fiican maanta u soo gaaray magaaladii Laascaanood oo ujeedaan inaan taaganahay waxaan u mahadcelinayaa waxa weeye waana deeqdii u horeysay oo intii magaalada colaadu ay ka kacday in soo gaadhoway waa tii ugu tirada badnayd deeqaha kale deeqa yar oo dad uun ka socda iyo iska magaalooyin soo gurgurmaday bay ahayd laakiin deeq heer dawladeeduna soo gaadhay waa tii ugu horeysay insha Allah taala waxaan leenahay jasaakumullahu khayran waa bilow insha Allah waan rajaynayna wax badan oo kale inay noo imaan doonaan waa uga fadhinaa waa la sugayaa dib dhiskan in qayb weyn laga noqdo la sugu tago dawladda iyo dhammaan iyo maarta shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan deeqda mucaawimada ay ugu soo tala galeen dadkoodii shacabkoodii Soomaaliyeed ee reer SC ee dhibaatada iyo qasaaraha iyo tacadigu gaadhay waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa dawladda China ama dawladweynaha China oo mucaawimada iyagu ku soo tabarucay ama soo bixiyay waxaan mar labaad iyagana u mahadcelinaynaa marka saddexaad dawladda Puntland oo fududaysay hadday tahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha xukuumadda agaasimaha guud iyo wasaaradda hay'adda maareynta musiibooyinka iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii deeqdan ay u soo gaari lahayd magaalada Laascaanood iyo deegaanada SC iyagana uga mahadcelinaynaa mudane agaasimo guud waxaanu ka gudoonay deeqda mucaawimada oo ah raashin ay timada raashinku ka kooban yahay isugu jira oo dhan 500 oo tan oo faraksar dhiman u qaadan lahayn amarkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland oo ah in gargaar kasta oo Laascaanood iyo maamulka SC u socda inaanu fududeyno oo aan u fududeyno sidii loogu talagalay aan saaka aragtaanin inuu nala taagan yahay maayarkii iyo shiikhul beledkii iyo xildhibaanadii dhammaan runtii waxaa ilaahay mahadiisa dadaal badan iyo waqti badan oo maamulka iyo waliba maamulka dekedda Boosaaso iyo wasaaradda gargaarku dhammaan ay galeen inuu si fiican maanta u soo gaaray magaaladii Laascaanood oo ujeedaan inaan taaganahay waxaan u mahadcelinayaa waxa weeye waana deeqdii u horeysay oo intii magaalada colaadu ay ka kacday in soo gaadhoway waa tii ugu tirada badnayd deeqaha kale deeqa yar oo dad uun ka socda iyo iska magaalooyin soo gurgurmaday bay ahayd laakiin deeq heer dawladeeduna soo gaadhay waa tii ugu horeysay insha Allah taala waxaan leenahay jasaakumullahu khayran waa bilow insha Allah waan rajaynayna wax badan oo kale inay noo imaan doonaan waa uga fadhinaa waa la sugayaa dib dhiskan in qayb weyn laga noqdo la sugu tago dawladda iyo dhammaan iyo maarta shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan deeqda mucaawimada ay ugu soo tala galeen dadkoodii shacabkoodii Soomaaliyeed ee reer SC ee dhibaatada iyo qasaaraha iyo tacadigu gaadhay waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa dawladda China ama dawladweynaha China oo mucaawimada iyagu ku soo tabarucay ama soo bixiyay waxaan mar labaad iyagana u mahadcelinaynaa marka saddexaad dawladda Puntland oo fududaysay hadday tahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha xukuumadda agaasimaha guud iyo wasaaradda hay'adda maareynta musiibooyinka iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii deeqdan ay u soo gaari lahayd magaalada Laascaanood iyo deegaanada SC iyagana uga mahadcelinaynaa mudane agaasimo guud waxaanu ka gudoonay deeqda mucaawimada oo ah raashin ay timada raashinku ka kooban yahay isugu jira oo dhan 500 oo tan oo faraksar dhiman